kulan lagaga arisanayay sidii laami looga dhigi lahaa wadooyin caratuul ah oo laga bilaabay qaybo kamid ah magaalada boorama kuwaasi oo iskaga gooshi doona isla markaasina isku xidhi doona xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaaladani boorama ayaa lagu qabtay huteelka rays ee magaalada boorama kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Awdal Axmed Xaddi Siciid duqa magaalada boorama Cabdiraxmaan Shidabila iyo qaar kamid ah ganacsadayaasha magaalada boorama gaar ahaan kuwii ay guryahooda hormareysay ama daba mareysay wadooyinkan laamiga laga dhigayo ee imika caratuulka ah ugu dambeeyay ayaa waxa boorama u qorshaysan in wadooyinka xaafadaha laga dhigayo caratuulka ay lacagta iska soo ururiyaan xaafadaha ay marayso isla markaasina ay ka gooshayso wadooyinkani kulankani ayaa waxa daadihinayay Sheekh Xasan Khayre oo kamid ah culimada gobolkani Awdal isla markaasina ku guubaabiyay dadka inay ka qayb qaataan dhismaha jidadka isla markaasina sheegay ajarka ay leedahay lacagta lagu bixinayo wadooyin kulankani ayaa waxa ka muuqatay dhiirigelin kuwaasi oo ay ganacsadayaashu ku ballan qaadayeen lacagaha ay ku deeqayaan in wadooyinkan caratuulka ah laga dhigo laamay arintani ayaa arin lagu hormarinayo wadooyinka gobolkan Awdal caasimadiisa ee magaalada boorama taasi oo ay magaalada boorama tahay caasimada kaliya ee ay ku yar yihiin wadooyinka laamiga ahi talaabadani quruxda badan la ayaa dadka magaalada boorama ay soo dhaweeyeen isla markaasina noqonaysa mid ku salaysan horumar taasi oo ay bulshadu diyaar u noqotay isla markaasina ay u qaangaadhay inay ka qayb qaadato horumarka gobolka gaar ahaan wadooyinka caratuulka ee laga dhigayo laamay ee iskaga gooshi doona magaalada qaybaheega kala duwan waxaa sanadihii ugu dambeeyay magaalada ku soo badanaya gaadiidka iskaga kala goosha magaalada kuwaasi oo sababay in loo sameeyo wadooyin laamay ah mid aan janno ku mutaysta insha Allah taala waxaan uga goonaynaa 300 waxaan rajaynayaa 300 badan doonto laba kala qol waayay insha Allah waa intay joogtay lagama tagay deelaan 300 baan maraynaa insha Allah waa tira dhiman oo waliba wax khayr maray jazaakumullahu khayr $300 دولار وإيه جزاكم الله خيرا وترى من إن الله وتر يحب الوتر إلهي سبحانه وتعالى ووتر الثلاثة جميلة وجعليه بارك الله فيكم واري هاي ندير وضع الإسكاء نوها ولما يلي الله رجل الله وصارنا عليه وقتين وقد وصارنا وقينا عما في سوق عليها وهو يعني وأنا كتير أبغى كم كتير أيها كنا كمان هذا كتير ما قاعد شيء لا كرسي فيه مفارح أيه ما شاء الله وحويا إلى خير وحويا بكبر البلد ما شاء الله وعليه والله نحن ما أنت يعني وين تحكيسي خضر محمد حسن حديقة نيوز مقالة بورما.